بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caafimaadka telefishinka RTN oo toddobaad kasta haadahan oo kalaad kala socotaan shaashada RTN barnaamijka laabo waxaa idinla socodsiisan igoo ah Bahjah Cabdullaahi Salaad toddobaadkan barnaamijka caafimaadka waxaynu kusoo qaadan doonaa cudurka markaasi dilaaga ah oo ka dilaacay dalka Chinaha toddobaadkan barnaamijka marti waxaa inoogu ah mahadiya ka gaartay Dr. Maxamed Cabdullaahi Ciise oo ah agaasimaha isbitaalka Taran Androcare ugu horeyn Dr. kusoo dhawow telefishinka RTN studiisa magaalada Muqdisho aad iyo aad ugu dhowahay stuudiyaha RTN TV aad iyo aad u mahadsan tahay walaashay run ahaantii waa ku faraxsanahay maanta in bulshada mar kale kala hadlayno xaalad markaas adduunyada ku soo korortay oo cusub rabna inaan ka waxgelin insha Allah Dr. toddobaadkan geedda waxaynu saari doonaa cudurka hadalheynta badan dhaliyay danka baraha bulshada muxuu yahay cudurkan dilaaga ah oo markaasi kan dilaacan dalka Chinaha sidoo kale goorma ayuu soo ifbaxay run ahaantii waxaa waddanka China ka dilaacay outbreak oo markaas bulshada la dhiban yihiin viruskaas oo dilaacay waxaa loo yaqaanaa human metapneumovirus oo HMPV loo soo gaabiyo run ahaantii waa virus oo ku group ah fayrasyadii hore loo aqoon jiray oo keeni jiray respiratory problemska oo dhanka neefmareenka ah sida human syncytial viruska loo yaqaano respiratory syncytial virus HSR run ahaantii viruskan wuxuu sababaa symptoms u eg sida common coldiga camal oo sida hergebka camal oo ah qandho qufac sanka qofka inuu cabur dareemo iyo neefta inay xoogaa dhibto marka ugu horeysay waxaa la ogaaday in uu jiritaankiisa la ogaaday 2001 laakiin culammadu waxay aaminsan yihiin in ka hor uu jiray oo adduunyada la dareemi jiray 2001 ka hor inuu jiray laakiin jiritaan ahaantiisa 2001 si sax ah loo ogaaday waa virus adduunka mar hore ku baahsanayd laakiin hadda xoogaa culayskiisa aad loo dareemayo haddaba maadaama sida sheegtay cudurkan human metapneumoviruska COVID-19 ma la mid yahay markii la isbarbar dhigo dhinaca calaamadaha oo kale qoorada caafimaadka ka discuss gareeyay arrimahan dhan waxay leeyihiin ma la mid noqonayo COVID-19ka sababtoo COVID-19kii waa markii ugu horeysay ahayd dadka immunity uma lahayn oo oo ku cusleed laakiin noocan HMPV-ga oo human metapneumoviruska dadka waxay u leeyihiin immunity laanno waa jiri jira dadka waa ku dhici jiray siiba waqtiyada oo winterka iyo aad ugu dhici jiray marka dadka hadda xaaladda soo ziyaada mogi dadka waxaa leeyahay waa uga fiican yahay adduunka marka loo fiiriyo coronaviruskii oo aad u dhibannay haddaba Dr. maxay tahay calaamadaha saxda markaasi ka soo muuqan kara qofka qaba human metapneumoviruska calaamadaha saxda oo qof ka soo muuqana waa calaamadii hergebka ah tooska ah sida aan sheegnay waa qandhadii waa quficii wuxuu dareemayaa qofka inuu sanka xiran yahay neefta inuu xoogaa dhibayso hindisadii badneed marka xaaladahaas qofka dareemaya laakiin wuxuu aad iyo aad ugu daran yahay caruurta oo da'dooda ay ka yar tahay 14 jirka oo dhiba sidoo kaleeto wuxuu aad u dhibaa dadka waaweyn iyo dadka immunitygeeda ay yar tahay oo marka hore already xanuuno kale qabeen hadday noqon lahayd kansarka TB-da waxyaabaha xanuunada immunityga yareeyo oo dhan dadka marka already marka awoodooda dhanka difaaca jirka u yaraa dadkaasna waa dhiba Dr. sida sheegtay xanuunkan human metapneumoviruska wuxuu jiray 2001
dalka China-hana waxaa loogu tiriyaa dad wax walba oo xasharaadka ka mid ah in ay markaasi ay cunaan. Ma la is dhihi karaana waxaa sabab markaasi u ah waxyaabaha cunooyinka iyo bahalaha yacni markaasi duurgalka ay cunayaan in ay sabab u yihiin. Sidoo kale waxyaabaha exact cause-ka markaasi sababi karana muxuu yahay? Waa nooc ka mid ah fayrasyada, waa common cold-ga camal oo sida hergebkii oo caadiga aan u arki jirnay waaye, ma ahan hadda wax la xiriira cuntooyinka ama qaab nololeedka ay u nool yihiin China. China waa waddan aad u ballaaran, dad ahaantiisana aad u badan. Marka kaliya waxaa laleeyahay systemkooda caafimaadka oo aad u horumarsan wuxuu sababa waxyaabo badan oo annaga aan dareemi karin oo keena. Marka taas looma eedeyn karo waxa ay cunaan ama waxa ay sameeyeen inuu ku sababay. Waa wax oo virus oo toos u imaaday oo annagana waqti walba oo ka imaan karo meel walba adduunyada. Haddana meel aan China ahayn ayuu ku fidayaa oo meelo qaarkood ayaa laga arkaa adduunyada. Totore markii laga soo tago dalka China ma jiraa wadamo kale oo markaasi uu ku sii fidayo cudurkan halista ah? Hadda riboortyadu waxay sheegayaan masalan waddanka India, waddanka Hong Kong, waxaa ka mid ah meelaha uu ku fiday sida Kazakhstan. Meelahaas waa lagu arkay cases. Marka taas waxay sameynaya in ay ka dhigto in wax oo public health issue inuu yahay oo xaalad caafimaad adduunyada ah. Marka meel kuma eka aan ula jeedaa. Marka maadaama fiditaankaas dadka waxay ku sababaysaa marka cabsi badan in uu noqon karo marka mid baaha oo wadamo badan adduunka ah oo ku baaha. Totore maadaama cudurkan sidaad sheegtay uu u yara egyahay sida hargabka oo kale, sidee haddaba laisku qaadsiin karaa cudurkan? Sax waaye, waxaa muhiim ah inay ogaadaan waxyaabaha laisku qaadsiinayo waxaa ka mid ah isku dhowaanshaha zaa'idka labada qof. Qofka kaleeto in neeftiisa ay soo gaari karto, qufaciisa, hindhisadiisa. Hadda xitaa waxaa laleeyahay fayraska hadduu gaaro surfaceska meelaha korkooda xataa haddaad taabatid waa ka qaadi kartaa. Marka waa wax si oo hergebka loo kala qaadi karo. Haddaba Totore cudurkan maadaama si fudud laisku qaadsiin karo, saameyn intee in la eg ayuu ku yeelan karaa dunidu idil? Cabsida saameynta oo adduunyada uu ku yeelan karo waxaa sii xoojinayo maadaama wadamo badan oo ku fidayo aan ahayn China oo wadamo ka baxsan uu ku fidayo, iyo maadaama uusan lahayn daawo toos ah iyo vaccine oo markaas oo toos loo isticmaali karo uusan lahayn. Taas labadaas waxay sii xoojinaysaa challenge-ga ah ka hortagga iyo daaweyntii xaaladdan caafimaad. Marka waxaa kaliya la tacaalid mooyaane oo ka hortag ah mooyaane macnaha ma lahan wax oo ama daawo ah ama vaccine ah. Rajada laga leeyahay muxuu yahay Totore maadaama COVID-19 saameyn weyn uu ku yeeshay dunidu idil, ka waran cudurkan markaasi asbuucyadii u dambeeyay kasoo shaac baxay dalka China-ha? Saameyn weyn oo wuxuu leeyahay masalan wuxuu kordhiyey visitkii oo dhakhaatiirta iyo ku noqnoqoshada isbitaalada maadaama hawo mareenka iyo sambabaha meelaha ugu muhiimsan oo qofka bini'aadanka ah noloshiisa haddii culays yar uu ka imaado ama infection uu ka imaadana oo qofka ku adkaanayso inuu guto hawshiisa. Waxay kordhisay admissionada isbitaalada oo jiifiskii dadkii marka horeba nuglaa iyo dadkii culeysyada dhanka respiratory-ga qabay COPD-da iyo barnaamijyada lamid ahay oo dhan macnaha waxay kordhisay dadka inay isbitaallo u galaan. Xaaladda guud oo adduunyada hadda oo siba isbitaalada emergency-ga ay la tacaalayaan oo ah in dadka u nugul oo vulnerable-ka ah oo sida caruurtii iyo dadkii waaweynaa iyo dadkii immunity-geeda oo hooseysay in lala tacaalayo. Haddii marka marnaba aysan jirin daawo sax ah oo antiviral oo therapy ah ama vaccine uusan jirin oo talaal, mar walba wuxuu ku ahaanaya adduunyada culeys oo ay la tacaasho sababtoo ah wax oo si toos ah looga hortago ma lahan. Totore sida sheegtay cudurkan human metapneumovirus-ka waxaad ka dhawaajisay vaccine iyo daawo toonna inuunan lahayn. Ka waran rajada laga leeyahay Soomaaliya ma soo gaari karaa maadaama cudurkan uu ka dilaacay dalka China-ha sidoo kalena ku sii fidayo wadamada Soomaaliya ma soo gaari karaa? Soomaaliya
waddamada waxay ku jirtaa oo low income-ka ah oo dhaqaalahooda uu hooseeyo, systemka caafimaadkooda uu waddamada uu liito, ee, ee, capacity-ga markaas haddii ay dhacdo in outbreak xoog leh uu ka dilaaco, culays badan uu ku noqon karaa systemka caafimaadka ee waddanka, dhakhaatiirta, isbitaallada dhammaan. Haddana dadkeenna dad awoodi kara ma ahan in ay sameeyaan isdaaweeyaan sababtoo ah aad ay maxay ahayd oo dakhligooda uu u liitaa. Culays badan uu ku keeni doona Ilaah naguma keeno. Sababtoo ah waxaa waaye ilmaha yaryaraay oo marka horeba maxay ahayd la tacaalaya nafaqa darrada iyo ama xanuunada kaleeto iyo kulli haddii markaas ay u baahdaan in isbitaal ay jiiftaan, isbitaalladu waa ku adkaan doontaa siday ula tacaamulaan. Marka si walbaba waxaa nooga muhiimsan annaga in aan la tacaamulno qofka markuu xanuunsado, waxaa nooga muhiimsan in aan ka hortagi aan ogaano iyo qaabka looga hortagi lahaa si aan u yarayno culayska nooga imaan karo maxay ahayd xanuunkan la tacaaladiisa. Doctor, maadaama cudurkan uu ku sii fidayo wadamada qaar, Soomaaliya in case haddii uu soo gaaro, sidee bulshada Soomaaliyeed ugu diyaar garoobi karaan ama xilli hore ka hortag loo samayn karaa? Waxyaabaha oo maxay ahayd oo la rabo in la fahmo waxaa waaye viruskan culayska markuu ku sababo qofka, waxyaabaha uu ku keenayo waxaa ka mid ah common cold like symptomska oo maxay ahayd in qofkii sida hargabka camal ah, qofka markaas waxaa lagula tacaali karaa dadka caadiga ah oo jirkooda uu is celi karo, qofka in la siiyo maxay ahayd loo sameeyo symptomatic treatment oo qofkii qandhada laga jebiyo, maxay ahayd daawadii qufici la siiyo, xaaladii maxay sankii iyo wixii yaabihii oo ku furi lahaa la siiyo, xaaladda guud in lala tacaamulo. Laakiin haddii ay ku sababto ilmihii in hospital admission loo baahdo oo la tacaalid isbitaal la jiifiyo loo baahdo, waxaa aad iyo aad ugu baahan doonaa oxygen-kii, waxaa ugu baahan doonaa daawooyinka badnaa oo la isticmaalaya sida waqtigii koronaha camal, qaarkood u baahan doono ventilations iyo kulli. Markaas culays waxay ku keeni doontaa marka in qaabkii oxygen-nadii iyo loo heli lahaa daawooyinkaas. Marka dadka haddii markaas ay xadidan yihiin waa lala tacaamuli karaa. Laakiin haddii ay dad badan ay soo dhacaan, capacity-gana uma diyaarsan in markaas oo aan la tacaamulno. Taas waxay ku noqonaya challenge xoog leh systemka caafimaadka waddanka. Run ahaantiina hadda waa in dadka loo sameeyo wacyigelin xooggan, qaababka looga hortago loo sheego, isbitaallada public-ga ah in diyaar garow ay sameeyaan oo ku saabsan in haddii ay dhacdo ICU loo baahan karo, isbitaallo oo isolated loo baahan karo, dadka meel lagala tacaamulo oo iyo team maxay ahayd public awareness sameeyo oo xoog leh in diyaar garow ay sameeyaan iyo dadka in looga furo maxay ahayd wacyigelin xooggan. Doctor, sala uu dhahay Soomaaliya waxaa maalin walba soo gala dad ajaanib ah oo markaasi ka imaanaya wadamo kala duwan. Ma la isdhihi karaana dadka maalin walba ajaanibtooda ka imaanaya in cudurkan gudaha Soomaaliya soo gelin karaan maadaama cudurkan si fudud la isku qadsin karo? Annaga xuduudaheena ma aha wax oo control kaliya ma ahan madaarka waxay kasoo degaan bis ma aha laanno xuduudaha weli waxa waaye ma ahan kuwo aad loo adkeyn karo oo la kontroli karo dadka soo galaya dhan. Haddana culayska jira waxaa waaye waqtiga viruska kugu dhacay markuu soo muuqanayo waxaa u dhahayso fatara oo kusoo muuqda jirto. Marka qofka asiga oo viruskii qabo ayaana kasoo muuqanayn. Marka testiga loo baahan karo marka oo PCR-ka nidaamkii loo baarayay iyo maxay ahayd waa jiraan laakiin diyaar garowgeedi meel walba ma yaallo. Meelihii mataaradana lama wada geli karo dadkan wada imaanaya dhan waa muklif waaye oo macnaha lacagtiisana waa badan tahay. Marka marna walbaba annaga diyaar garowgeenna ma ahan karo mid oo sidii la rabay noqonayo laakiin kaliya wax un diyaar garowga dhanka oo aan ka diyaar garoobi karnaa dhanka oo bulshada inaan wacyigelin u samayno. Waxaan ka diyaar garoobi karnaa haddii ay dhacdo in oxygen-nada iyo ventilationska iyo mararka qaarkood inaan diyaari karno. Doctor, hore waxaa ugu dhawaajisay cudurkan human metapneumoviruska in uu la mid yahay sida hadda kocay. So maadaama dhakhtar aad tahay isbitaalka wuu u diyaarsan yahay wacyigelin in la gaarsiiyo bulshada oo miidiyaha idaacadaha dhan walba in la mariyo. Mas'uuliyadda isbitaalka Tara Andro Care waa isbitaal takhasusi ah horta kuna saabsan arrimaha urology-ga oo ah kelyaha kaadi mareenka iyo arrimaha la xiriira fertility-ga iyo sexual problems-ka. In badan waxaa anaga xoogga saarnaa takhasuskeena oo xoogga aan saarno
sidoo kaleete bulshada inaan u sameyno health education iyo wacyigelin waa waxyaabaha aniga hadda aan maxay ahayd oo arrintan oo public health issue-gan inaan wax uun ka dhahno ka dhakhaatiir ahaan bulshada run ahaantii waxaa naga saaran maxay ahayd mas'uuliyad xoog leh oo in aan la wadaagno wixii soo kordho la wadaagno sida looga hortagi karo sida la iskaga daaweyn karo marka waxyaabo oo mas'uuliyad qof walba ay saaran tahay dhakhtar ah waxay saaran tahay kasoo bilow wasaaradda caafimaadka qof walba oo dhakhtar ah qof walba oo bulshadan marka maantay u ah in maxay ahayd bulshadan uga wacyigeliyo wax walba oo khatar ah ku imaan kara bulshada. Doctor, maadaama cudurkan human metapneumoviruskii common cold-igu isku mid uu yahay xilli hore early prevention loo sameeyo ama ka hortag xilli hore sidee bulshada Soomaaliyeed ku ogaan karaan xanuunkan inuu jiro? Xanuunkan keliya waxaa lagu ogaan karaa markii test loo sameeyo laakiin symptomska saan sheegno isku wada egyihiin bulshada laakiin waxay awoodi kartaa inay prevention u sameyso oo ka hortag ah in ay ka fogaato mar walba ay sameyso horta gacmaha inay nadaafadda ay gacmaha ku gaarto in ay xirtaan maxay ahayd waji xirkii face mask ah in meelaha qaarkood oo dadka ay iskugu imaadaan sida maxay ahayd masaajidda iyo meelaha maxay ahayd markaas dadka ay ku kulmaan in ay qofka u xirto qofka hadduu dareemo cunuga masalan ilmihii laga arko qufac zaa'id qandha ay kulli in iskuulka loo dirin oo markaas guriga lagu haayo oo laga ilaaliyo in ilmihii kaleeto uu dhex galo waxaa ka mid ah maxay ahayd qofkii in uu badiyo biyo cabista in uu maxay ahayd isticmaalo waxyaabihii gacmaha anti germiska ahaa inuu isticmaalo qofka hadduu qufac iyo isku arkane in dadka markaas oo shaqo wadaagga u yihiin ama meeshii uu u shaqo tagayo inuun aadin si dadkaas kale uga badbaadiyo intaasaa muhiim. Doctor, ugu dambeyn fariinta bulshada Soomaaliyeed aad maanta fursadaad u heshay telefishinka RTN maadaama cudurkan dalka China uu ka dilaacay suuragal way noqon kartaa Soomaaliya inuu soo gaaro maadaama maalin walba ajaanibta waddanka ka imaanayaan fariinta bulshada Soomaaliyeed iyo dhakhaatiirta aan la wadaagdeen maxay tahay? Dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxaa fariin ahaan ula wadaagayaa in marka hore uusan ahayn khatar oo sida insha Allah khatartii COVID-19 bulshadii in ay taas u dareemin tan culeyska inta ugu badanna uu ku keenayo ay tahay dadka u nugul oo markaan ka dhahay u nugul oo ah carruurtii iyo dadka waaweyn iyo dadka immunity-geeda oo hooseyso oo sida maxay dadka daawooyinka qaarkood qaata ama difaaca jirkooda uu hooseeyo waxyaabaha marka fariinta aan rabo waxaa waaye in ay ku dadaalaan dhammaan hygiene-ka iyo nadaafadda in ay sameeyaan maxay ahayd difaaca jirka waxyaaba kor u soo qaada sida limonti iyo khudaartii iyo waxyaabaha qaarkood dadka isticmaali kara isticmaalaan in ay aad iyo aad maxay ahayd uga taxadaraan iska saaran mas'uuliyad in meelaha suuqyada meelaha dadka iskugu imaadaan kulli marka ay joogaan inay xirtaan face maskiga iyo waxyaabihii ay uga hortagi lahaayeen in haddii ay dhacdo in cunugooda ama dadkii waaweynaa ay qandho iyo qufac ay dareemaan inay isolate ay noqdaan iyo ay dhex galin dadka kale seen usii faafin tan dhakhaatiirta fariinta oo dhakhaatiirtii dhammaan wasaaradda caafimaadka in qof walbaba uu iska xil saaro sidii bulshadiisa uu ku gaarsiin lahaa message-ka oo wacyigelinta caafimaadka ah run ahaantii mas'uuliyad badan naga saaran in loo sameeyo qaab marka bulshadan loogu kordhi karo wacyigeeda caafimaadka laanna bulsho marka wacyigeeda caafimaadka uu kordho waxaa aad u fudud ka hortag wax walba oo dhib ah oo bulshada uu keenayo iyagana dad waxay ogaanayaan khataraha qaabka looga hortagi lahaa iyo qaabka loo sameeyo laakiin waa in qof walba oo dhakhtar naga mid ah inuu taas mas'uuliyad iska saaro oo waqti u helo jaanis ah in bulshadiisa uu la wadaago xaaladaha caafimaadka jiri karo iyo qaabka looga hortagi karo iyo ama loo daaweyn karo. Aad iyo aad u mahadsantahay. guud ahaan daawadayaal halkaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka toddobaadlaha caafimaadka telefishinka RTN istuudiisa magaalada Muqdisho laaba barnaamijka waxaan la socodsan waa Habdaha Cabdullaahi Salaad mahadiha ka gartay toddobaadkan barnaamijka waxaa igala qayb qaatay Dr. Maxamed Cabdullaahi Ciise oo ah agaasimaha caafimaadka isbitaalka Taran Androcare toddobaadkan barnaamijka waxaynu diiradda ku saaraynaa cudurka toddobaadkan barnaamijka waxaynu diiradda ku saaraynaa cudurka human metapneumovirus oo ka dilaacay dalka China
intaan dib dambe kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga waxaan idinkaga tagayaa sidaa nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu